السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحاب تقاليد السود دواذا maanta iyo mar kale waxaan isugu keendanbeysay video hore aan soo sameeyay aniga oo la yaaban social media dhibaatooyin kale oo ka dhacay oo soo bandhigay igu keendanbeysay maanta iyo mar kale kulanti wacan wanaagsan asxaabta qaaliga ah soo dhawaada. maanta waxaan rabnaa qasiyar inaan ka sheekeyno shaqana waa haysanaa oo shaqana waa hayaa oo jikooni aan ku jiraa oo cuntaag raba inaan kariyo. waxaan rabaa inaan qurac kariyo. quracda waa karsantahay maasha Allah, maraq yaraan kari rabaa, maraqaas yaraan kari rabaa. sheeko yarna qac inaan kaga siiyo aniga yara xoogoo ka yara helay, waana yara murug badan tahay, sheekadu waana yara murug badan tahay, waana fiican tahay. saan u arkay ani waa ila fiican tahay, waana maasha Allah. kusoo marka asxaabta qaaliga ah kusoo biir youtube-kayga haddii aad ugu cusub tahay in subscribe iyo saar hadii la joogtana aadan kaaga mahad celinaya sida quruxda badan oo diila joogtay. waxaan ku soconaa wadadan ku tagi lahayn 30 subscribers wadadan ku tagi lahayn ayaan ku soconaa asxaabteyda haleega. markaan waxaan leenahay video share garay haddaad aragtid. markaan inkaga bilaawa sheekada ninkaga bilaawaya gabar ay ahayd, sheekada gabar waaya, gabar qisadaas ila wadaagtay, qisada gabar ila wadaagtay ayaan rabaa inaan inkiga sheekeeyo. marka sheekada sida tan ku bilaabanaysaa. gabadha waxay ahayd, gabadha magaceeda waxaa la yiraahdaa حليمة اللي هذا حليمة وقاعد حليمة لما لكن حليمة أربع سنين وقاعد مدام إذا نوشيتي مقام لكن حليمة أربع سنين قبل حليمة واحد أنا وحان حليمة اللي هذا كرر النقد بيلك يجلس كإماضي كرر النقد بيلك يجلس كإماضي الله اللي بس هذا بركة أنا بلا حليمة واحد تري وحان جري waxaan ku noolahay tiri magaalo baadiye aan ku dhashay, tiri baadiye aan ku dhashay. teeda kale waxay hooyaday dhimatay anigoo 6 sano jiray. hooyaday dhimatay markay dhimatay kadib waxaan ku koray tiri meel baadiye ah. aabaheena wuxuu ahaa nin reer baadiye ah, asagana xoolo dhaqato iska ahaa, waa iska reer baadiye ahaa. marka waxaan ku soo koray tiri ku yara roonaaday. aniga waxaan ahay qof guriga caawiya, familka caawiya, cid iskaga joogo. hooyaday maadaama ay anoo 6 sano jira ay dhimatay waan ku rafaaday tiri ciddana waan zayd u rafaadsanay, waan ku dhibtoonay, hataa cunto fiican ma heli jirin. marka cidda anagoo sidaas iska meel yaroo baadiye magaalo aan joognay, magaalo xoolo fiican ma qabin tiri aabahay, xoolo fiican ma qabin. hooyadeyna waxay dhimatay anoo 6 sano jira. xaliima waxay tiri marka waxaan nolosha ku rafaadnaba anigu waxaan weynaaday waxbarasho la-aan ayaan weynaaday. markaan 14 sano aan soo gaaray waxaan damcay tiri inaan magaalada suuqa aan u kaco oo qudaar aan gado, qudaarley aan noqdo oo suuqa aan gala aan jeclaystay. sidii waa ii hagaagtay. waxay tiri suuqleya iska noqday saan aabahay iyo ilmaha iyo carruurta aan u caawiye. waxaan aaday suuqleya noqday, qudaar saan u gadaayay anoo suuq iska dhex joogo oo qudaarta aadaayay. maalinkiina qudaarta aadaayay, habeenkiina soo hooyanayay. ayaa waxaa maalmaha ka mid waxay ga hor imaaday yidhahdeen naag naagahan NGO hayadahan NGO u shaqeeya iga hor imaaday tiri gabar hayseetan fiicanta way salaantay, waa salaamo habar yar waa fiicanahay, ii waran see tahay waan fiican habar yar. marka waxay tiri gabadhaas habar yar ma fiican tahay? haa waan fiicanahay habar yar. waxay tiri habar yar wax maad barataa? may habar yar waxba ma bartiyaan dhahay kuti. marka anigu waxbana jaanis ma ugu helin inaan wax barto. hooyadii way dhimataan dhahay kuti. qashadayda ugu sheekeeyey aabaheen waa iska sabool, ilmaheenaan koriyaa.
marka ilmaheena hooyo aabahey la kuriyaan dhahay marka saas dhahaday waxay tiri habaryar waxaa jirta meel waxaa jirta aan ku barno dadka si bilaash ah oo waxaan ku barno shirqaan iyo computer iyo luuqadaha saddexdaas shay aan ku barno oo si bilaash aan ku barno haddaa kasoo qaybgeli kartid waa noo imaan kartaa aniga maalintaas وماندي وفر حدا بدنا ما عندنا سيتعتري الله جانس مهيلي كرا وحاسو كرا عندها قلت أما علين كني شقن آذا أو نفاس هاي ما علين كني شقن هايا نفاس هاي بس بحيث المركة ما علين الدنبا ما علين الدنبا حد هابين كي أمبرنا وحد هابين كي أمبرنا يا ما علين كي شقد يا كلا صلاة دينا قدرت وكلها على ربع وحارب عايد هذه مركة إن أن هبينكي عم برتو مكان كرا هبينكي نوح برتو ها الله هوين فربنا برتو ما موين فربنا قبل بدنا برتو كوسو بير الله هي مركا كوسو بيرت كدب وحال له يكون بيرتي هبينكي wax barin jirta iyada habeenkii wax u barneysay waxay noqotay ardayda kan ugu fiican oo basanaan jiray indhaha xanuunaha indhaha bilbilway waxay noqotay walaal jirnay waxay noqotay hooyooyinka mid gabdhaha mid wax barneysay qof ugu firfircoon ay noqotay waxay baratay harqaan ay baratay harqaankaas ay baratay waxay noqotay qof ugu firfircoon oo ugu fiican meesh qaybta waxbarashada ay noqotay markaas waxaa la dhahay gabadha sanad kadib qofka ugu firfircoon ay noqotay meesha habeenkii lay baranaysay maalinka sidiisay u caawinaysay maxaa la dhahay marka qayb waxaa la dhahay gabadhan kuwa hay'ada ah waxay dalbad marka luuqada qaabka luuqada lagu bartana waa isku diyaarisay luuqadihiin wixii waa baratay waxbarashada meesha kuma ekeyn habeenkii shaqaanka bis kuma ekeyn luuqadahay waxay ku dartay markay ku dartay kadib waxaa la qof oo hore u socdo waaye hay'ada kala ah waxay sameeyeen inay dalbato oo u dalbato ma hay'ada kala dalbatay oo waxay dalbatay maxay ka heshay markan inay deeq waxbarasho ka fiican deeq waxbarasho fiican Turkiga ka heshay markay deeq waxbarasho Turkiga ka heshay waxbarashadii soo dhameystay waxbarashadii waxay ka soo dhameysay in waxay hadana maratay qaybta ganacsiga iyo maamulka harqaanka wixii dhan waxay qof khatar ku noqotay howlahaas khatar ku noqotay wali waa ku sii shaqaysanaysay waxay baratay ganacsiga iyo maamulka ay baratay ganacsiga iyo maamulka markay baratay kadib waxay noqotay gabadhi ugu fircoonad meesha ay noqotay maasha allah marka dambe waxay lahday wada maadaama waxbarashadii dhameystay waxaan ku noqonayaa wadankayga wadanka markay imaaday gabadhii shalay miskiinta ahayd waxay furatay meel iyada ay qaar u leedahay shakhsi u leedahay oo ka shaqaysanayso oo dadka ay dhalinayaan maamooyinka ay ka caawinayso oo waxbarasho qayb ka mid ah waxbarasho ay u furtay gabadhaas waxay noqotay maskiintii gabadhii ugu murugada badneed haddana uguna farxadda badneed guuleysato inka gabdho badan oo guuleysto way jiraan laakiin meesha sheekada waxaan ka fahmaynaa si kastoo nolol walba oo adig kusoo kortid waxaa waaye nolol walba oo adig kusoo kortid micnaheeda maaha inay meesha iyada la taagnaanaye isbedelka nololeed waa sidaa adigu ilaahay calafkaaga dhiga iyo sidaa adiga u dadaashitay ku xiran tahay ma garateen gabdho waad meesha waxaan ka fahmaynaa inaysan nolosha aan ama adiga aad istiyaacad maahane waxbarashada anytime aa wax barasid ay horey gadaal mar walba ay ku anficayso marka Xaliima guusheedii waxay noqotay gabar dadka dhan saacideyso oo hooyooyin badan saacideyso oo hay'ad gaar ah iyada leedahay noqotay oo hay'ad u taagan noqotay gabar dadka caawisay noqotay maasha allah anaga meesha waxaan ka fahmaynaa inaysan isdhib ya haddaadan isdhibin oo nolosha adiga isku dhiibin aad noqonaysid halyeeyigii nolosha ku guuleystay ma fahanteen sheekadaas ay la wadaagayay quraacdeeda baan karsaday باي هذا تقدر تسوي يوتيوب سبسكرايب صار هذا اللي جبت أنا كاغا ما تعلنا لايك صار فيديو